guud ahaan waxaa maanta si ballaaran u soo dhaweeyay xil wareejinta hogaanka cusub ee ururka dhalinyarada Soomaaliland Soonya dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorama iyaga oo ugu hambalyeeyay hogaanka cusub oo hogaaminayo Siyaad Cumar Cali iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Boorama waxaana ka mid ahaa hadaladoodii iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale dalada heer qaran ee Soonya waa Soomaaliland dhalinyartooda dhan from last Graska Monito waxay ku taala luuqada inta u dhaxaysa aad ku hadlaan dhalinyartu oo ku tashatay Soonya waxaan karaa waa meesha siyaasadda qof doonaya inuu galo ha ka bilaabo marka labaad waxaan hambalyo u dirayaa Siyaad Professor Siyaad waan leeyahay xilka uu qabtay waa xil aan ogahay inuu karti u leeyahay una leeyahay inuu Soonya noqon doono hogaanka ugu qaalisan ee Soomaaliya Soonya waxaan oo ku kalsoonahay hawlkarnimadiisa iyo sida uu u fulin doono Soonya iyo halka uu gaarsiin doono waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliland labaad waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa gudoomiyaha ururka heer qaran ee Soonya Siyaad Cumar Cali waxaan leeyahay hambalyo xil ballaaran baa lagu dhiibay xilkuna aad iyo aad buu culusyahay وإلهي بكور من جنة عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الصيد ناي دلده أو مقرنة دورتي قدوميها زياد عمر علي أو قبل كأول كسوة هذا هي عبد القادر محمود شرا أو قبل سنة درف كسومال أنت حاجة دين عبريحجة سنة كسوة هذا رنتي تصوح كنت سايسها in yani ururada ku jira dalada Soonya ay u bislaadeen dalada Soonya ee heer qaran gudoomiyaha cusub ay hadda dooratay iyo kii hore ee xilka wareejiyay intooda waxaan baliyaan u dirayaan waxa sidoo kale iyadna xusid mudan maanta yani qaabka doorashadu u dhacday oo ah qaab transparent ah gudoobin dhalinyarta ee ku kala nool daafaha si gudaha mise dhex bartamaha Somaliland oo loo doortay maanta waa maalin kale taariikhda ka duwan taariikhdii hore ay dalada dhalinyarada Soonya soo mari jirtay waayo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkaba waxa laga kala doortay labada taariikh ee Somaliland oo gudoomiyaha loo doortay gobolka Awdal Siyaad Cumar Cali xilwareejinta maanta dhigtay isku wareejiyeen dhalinyarta ururada Soomaaliya ku boobay Soonya maamulkii hore iyo maamulka dambe sida dimuqraadiyadda ah ay ku wareejiyeen xilkooda ka oo ay isku wareejiyeen oo laga dhigay gudoomiyaha cusub dalada Siyaad Cumar Cali taas oo aad aan uga hambalyeynaya oo inaan ka hadlaan jecelahay rayga dadweynaha oo ay TV-yada Soomaaliland ay dhammaantoodba maanta la dhex marayaan ummadda oo ka soo jeeda dalada Soonya Siyaad Cumar Cali oo dhawaan xilkii gudoominimada lagu wareejiyay waxaan leenahay Siyaad Allah ku fududeeyay xilka weyn ee aad qaaday maan raxiim waxaan halkan hambaliyaan ugu direynaa maanta gudoomiyaha loo doortay dhalinyarada ururka dhalinyarada Soonya iyo gudoomiye ku-xigeenka Siyaad Cumar Cali iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa taasi oo lagu hambalyeeyay xilka cusub oo loo dhiibay waxaan halkan hambalyeeyay dalada qaran ee Soonya dhalinyarada sida wanaagsan hogaankeyga sida wanaagsan ay u doorteen hogaanka cusub gudoomiyaha cusub Siyaad Cumar Cali waxaan halkan hambalyo aad ballaaran uga dirayaa dhammaan dhalinyarada ee Soonya gudoomiyaha Siyaad Cumar Cali iyo ku-xigeenkiisa inaan u hambalyeeyo hogaanka cusub ee dhalinyarada dalada Soonya ee ururada Somaliland cusub inaan u hambalyeeyo waxaan kaloo u hambalyeynayaa hogaankii hore ee dalada Soonya ee hogaanka ka Mubaarak waxaan leeyahay wax fiican baad soo qabateen oo soo shaqayseen meel fiicanna waa soo gaarsiiseen dalada marka koowaad waxaan hambalyeeyaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliland meel kasta joogto mar labaad waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa gudoomiyaha hogaankii hore sida sharafta leh
xilkasnimada ku jirto ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee dalada Soomaaliya iyo gudoomiyaha deegaankiisa runtii dalada Soomaaliya waa dalad dalka oo dhan laga aqoonsay oo ah national youth salaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam runtii maanta waxaan hambaliya gaar u direynaa dhalinyarada ururka Soomaaliya kuwa xilka la wareegay iyo kuwa xilka wareejiyayba waxaan u direynaa runtii hambaliyo hadaan nahay dadweynaha iyo bulshada ku nool gobolada galbeedka waliba waxaanu si gaar ah u hambaliyeenaynaa maanta mas'uuliyiinta xilka haysa oo noleenahay xilkana Allah idin fudaydiyo dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaanteed iyagana mahad baan u dirayaa si gaar ah waxaan u mahadinayaa gudoomiyahii hore ee dhalinyarada Soomaaliland Mubaarak Ismaaciil Taani iyo groupkii hogaaminayay oo si qurux badan u wareejiyay xilka muddo kadib 2 sano si kastaba ha ahaatee hogaankan cusub ee loo magacaabay ururka dhalinyarada Soomaaliland Soonya ayaa noqonaya tan iyo markii ururka la yeegleelay markii uu horeysay ee hogaanka ay qabtaan dhalinyarada ka soo jeeda gobolada darafyada Soomaaliland Nuruddin Cabdullaahi Dugsiye